waxaan rabaa caawa inaan idin la wadaago qorshaha hawlgabnimada haddaan annaga Soomaali nahay ereyga retirement waa nagu cusub yahay wuxuu nagu cusub yahay dad dalkanaga Soomaaliya walow uu shaqaale badan lahaa ama shaqaale rayid ha ahaadaan ama shaqaalaha dawladeed laakiin se wadan lahaa pension system iyo retirement system ma ahayn saasoo ay tahay hadda markii aan qurbaha u soo wareegnay waxaa nagu cusbaaday ereyga retirement ama hawlgabnimo dhowr bil ka hor baan waxaan damcay in aan fasiro ereyga retirement Mareykan ahaan dadkan waxaan weydiiyay waryaa retirement muxuu ahaa fasiri karo dadkii waxay dhaheen hawlgab shaqo ka joojin shaqo ka istaag bay ahayd haddaan dib u laabano ereyga hawl gab waa laba erey la isku keenay waay waxna waa hawl waxna waa gabid hadaad fiiriso qofkan hawl buu gabay baa leeyahay waa qof aan ka soo bixi waayay hawshiisa ka soo bixi waayane laakiin haddii retirement la fasiro afqalaadka ingiriiska waa erey sharfan weeyane wuxuu u dhigmaa qofkan wuxuu soo shaqeynayay 20 sano 30 sano hebel wuu retire garoobaa la leeyahay soo qurux baa raacsan laakiin annaga xagganaga hawlgabnimo waan yara baaray markaan yara baaray waxaan soo ogaaday Soomaaliya inaysan lahayn retirement system lahayn aniga Cabdiwali ahaan Mareykan waxaan ku noolaa 30 sano ku noolahay 30 sano 21 sano ama ana iskii u shaqaysanayay ama waxaan u shaqaynayay shirkado iyo dawlado sanad kasto qof kamid ah shaqaalahaas baa retire garooway ama hawlgab aaday qofkaasna qof wuxuu ahaa diyaarsaday noloshiisa dambe kulankan wuxuu ku saabsan yahay qorsheynta hawlgabka bulshada Soomaaliyeed qorsheynta nolosha hawlgabnimada Mareykan weeyane waayo Yurub hawlgabnimo gooniye lahaan kartaa wadamada kale wadanka mid gooniye uu leeyahay waxaan idin soo jeedinayaa aniga oo ah Cabdiwali Maxamed CPA waxaan ahay mulkiilaha laba shirkana waa Qira Investments and Real Estate oo loogu talagalay investment planning real estate wealth management shirkad kalena waxa weeye shirkadii canshuurta iyo xisaabaadka weeyane labadoodaba waa runtii waa laba shirkad isku baahan waay saasoo ay tahay rali hada sababta aan rabo aniga Cabdiwali ahaan inaan uga hadlo hawlgabnimo maxaa weeyane waxaan aaminsanahay aniga hawlgabku ma ahan dhamaadka shaqada dadku waxay u maleeyaan markuu qofka retirement galo inuu ka tagay waa bilow nolol xor ah freedom bay dhahan regalbeedkaaneed oo leh ujeedo ama purpose waayo ka soo qaato tusaale ahaan 22 sano jirta ama 4 baa jirta markaas aad jaamacada ka qalin jabisay shaqa ka horeyso 20 sano 4 sano ka horeyso so intaas sana shaqeynayso xor ma tihid waxaad xor u ahayn waxa adiga aad jeceshahay ma suubinaysid waa shaqeynaysaa aabba tahay hooya tahay iyo waxyaalo kala tahay so markii aad gabowdo baa laga yaabaa in aad noloshaadii xor u heshay qorsheyntu waxay hubisaa sharaf dignity xasilooni ama waxa loo yaqaan comfort iyo nolol degan stability macnaheedu waxa ula jeedaa hadda annaga Soomaali nahay markaad awoon noqoto ama ay aad noqoto waxa laga yaabaa in aadan ka fakirin sidii ay noqon lahayd noloshaada waxa laga yaabaa gabadhaadii ama wiilkaadii in ilmihii adiga ay ku keensadaan oo halkaas ayaga uga noqoto daycare kale laakiin se waxaan rabnaa dhaqankaas hadda annaga nahay reer Mareykan Soomaali inaan bedelno oo waxaan rabnaa hooyada iyo aabbaha in uu hadda si taabashaysto hadda uu si shaqaysto oo meel wax sii dhigto hadhow markuu 59 sano iyo bar gaaro haduu Ilaahay gaarsiiyaba ama 60 sano gaarsiiyaba in uu noloshiisa si fiican ugu istiraexi karo dad badan baa waxay rabaan inay ku laabtaan dalkooda oo ay ka tagaan dhaxaltooyo ama legacy waxa loo yaqaan
qorshayntu waxay hubisaa sharaftaada xasiloonidaada iyo nololkaada degan markaan leeyahay dad badan waxay rabaan inay laabtaan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in dhammaanteen nahay xirfadlayaal nahay waxaan leedahay waa waqtigii aan dhulkayga hooyo ku laaban lahaa aan waqti gelin lahaa maadaama hadda aan muxuu ahaa khibrad la ahay haddaan annagu nahay shirkadda qire waxaan mar kasta kugu dhiirigelinaynaa inaad qorshe hore iyo go'aan caqli ku salaysan aad la timaado si loo gaaro hadafkaada ama howlgabnimadaada aad u gaarto adiga oo aan degdegsanayn oo ku soconayo jawi runtii degan baan rabnaa qorshaynta howlgabka horta qof kaste waa in uu bilaabaa waqti hore xataa ku bilow lacagta yar dhammaantiin waxaan aaminsanahay inaad haddaba shaqaysaan hadda iska u shaqaysana aad ka shaqayn jirtay markaad shaqo bilowdo waxa ugu horeeyo oo HR departmentiga ay kaala hadasho waa income-kaada waay waa canshuurtaada waay waxaa ku xigo retirement ku xigo waraaqo badan lagu siinaa oo 401k ah waxaa lagu leeyahay shirkadda haddaan hebelnahay annaga halahan baan kugu daraynaa adin maxaa ku darsanaysaa waa adoo jiro 20 sano jir lagu bilaabayaa way soconaysaa ilaa aad muxuu ahaa adiga aad ka tagaysid shirkadda waxaa la rabaa adiga in aad ogaato ilaha dakhliga retirementiga qofka social security kaliya kuma noolaan karo weliba waddankan joogna Mareykan wanaad keed leedahay savings leedahay wanaad retirement plan leedahay account wanaad investment leedahay investment maalgashi wax ka noqora ama han noqdo hantiile ka qaadanayo guryo kiro ama han noqdo hantiile stock market wax gadanayo waa in aad la timaadaa wax maalgashi ah waayo markii aad gabowdo oo aad howlgab noqoto lacagtii ku soo gelayso kuma soo gelayso hadda laakiin waxaan rabtaa lacag socoto oo aad u shaqeynayn oo adiga aad maalgashtaan rabaa waa inaad qiyaasto qarashaadka howlgabka oo adiga aad ku qorato haddii ilaahay gaarsiiyo tusaale halkaan waxaan ku soo qoray waana ka hadlanaa lacag baad meel dhigatay ku dhawaad 25 sano baa meel lacag dhigatay markii aad dhigatay faa'iido bay lacagta dhalinaysaa maadaama annaga dad muslim nahay Soomaalida badankood markay arkaan boqolkiiba waxay dhahaan waa ribo ogo wax kasto oo number wato ribo ma ahan faa'iido ku imaan karta difference ku imaan kara profit sharing buu ku imaan karaa adiga xataa aad iskaashta ka mid tahay qof aad la heshiiso qofka wuxuu xaburi kartaa faa'iidada ku soo gasho waxaad iga siinaysaa boqolkiiba halaas waa percentage way so percentage-ka yuusan runtii ku sirin oo dhihin waxaan ribo waay aday ku xiran tahay in aad baarto halkan waxaan u soo qaatay 25 sano qof lacag meel dhiganay lacagta uu meel dhiganay wuxuu ugu talagalay bas kaliya howlgabnimo wax kale kuma talagelin bal ka waran adigoo ku jiro ayuuto ama hagbad ama shalongo waxa la ku jiro haddii aad taa u wareejiso howlgabnimo ka waran waayo ayuutada adina lagu soo celinayaa hal sano ka bacdi 2 sano ka bacdi laakiin wax faa'iido ma aysan keenin ayuutadii waa 500 bixisay waxaa lagu soo ceshay 600 lagu soo ceshay sama lagu soo ceshay laakiinse 500 oo aad account u furatay ama IRA ha ahaado ama Rath ha ahaado ama stock ha ahaado faa'iido korayso adaa ranaas maamusho haddaad 600 bishii muddo 15 sano dhigto meel dhigato waxaa ku soo baxayo ama aad helaysaa lacag gaarayso 340,000 halkaas waa kayd kaliya oo savings ka retirementiga waxaad ka ku sii dheer social security adiga iska jiraysay kambagina uu ka jiray oo markaad gaarto 62 sano waddankan Mareykan lagu retire garoobay retirement aad helaysaa numberkan waa numberka aniga Cabdullahan maanta aan u qalmo ana kan soo qortay waan idin insha Allah hadii maanta ani Cabduwali ahaan aan 62 sano jir lahaa maanta waxaan xaq u lahaan lahaa inaan helo lacag gaarayso $720 helaya laakiin haddii aan sugo oo aan sii shaqeeyo
إلا أن جارايو تدوسنا إلا أن جارايو تدوسنا سنة وحن هلا صدقنا هلا سما هدول هاي جارسيو هل كاس وحاول حيسو إنا هلي كرو كنت رابقل إلا صدقكم سما أهلي كرو بالكستو وسوش كرت كليوي وحاسيدر شركة وشقينا أي بنشن بإنجليزي سما أو العقبة البيكست اللي يجراه العقد اللي يجراه وحبال اللي يقدراه أجو العقد اللي جرايو هي العقد اللي يقدرايو وحيكون حرنت هاي مشاركة ذيك سوق لك حرنت هاي سما هداد بقول أتنكم سوبيسو وحال جيابا إن شركة كاجرسو بقول كيف طبعا هالكاس $8 رواي سما وحال جيابا شركة دينا كنت رحلو أننا أنت كوكو درنا ياكله هالكاس بحكوا أرورتي العجاريسو لا تفقد $1 بس أنت سواكو أروريس مرة يكسو وريقتو أفرت سنة عشقينيسي العقد بنا ملكو تعال سما كان إسكده إن مركات جارتي اللي إحنا لوسنا أذهليسو $2,000 حدا ودرت الجود وقف كان هلي كرو وحيقول حيسا أفركن صدح بقول إلا شان كل حبقول قف كان هلي كرا أسوق جرو 62 إلا 67 بهي كرا قف كان وقف دجستي قرشوي وقف سوشي كورت كيس في عنيوي وقف مشار في عن وسوق لاي وقت دير ويعني ساسو ايت هاي dadka adinka mid qaar waxa laga yaabaa in aadam waliga qof u shaqeeynin oo aad shaqeysanaysay taa dib ma jiro waa ka soo gaari kartaa laakiin adaa laga rabaa inaad la imaado yool ama goal la timaado oo lacagta ku soo gasho sanad kasto faa'iido aad u qorsheyso retirement gooni ah aad u qorsheen waxyaalo kale halkan waxaysiin حالي بان actually أركي حيسين ويانه حيسين تان كمبني كان لده smartasset.com بحيسيني كل قف كان وقف إسكا وأكتر السويانه فاهمينه قف كان هذا سؤال بو حويدين يا شركة دان وحوليه هاي وحان هي السنة العقاري سو هل بيبيع 6 مليون بانو وجرته 401k كنا نوجرته waxaan kaloo haysanaa $1.1 milyan oo ah maalgashi kalaan haysanaa bal fiiriya hadda qofkan 2 milyan iyo 7 milyan buu haystaa wuxuu haystaa kaliya maalgashi wuxuu haystaa retirement dadkan weeye dadkan aan rabno in annaga aan la tartamno yes aniga maanta lama tartami karo sadan bilaabaya laakiin waxaan rabaa ilmahayga inay saana kala fakaraan baan rabaa adna waxaan rabaa inaad saan waxaan rabaa u fakarto oo cunugaada aad saarin culays meeshan waxaa leeyahay muujido waxa ku qoran how do we structure our withdrawals so we don't touch the principal macnaheedu waxa waaye lacagtaan rabnaa la soo baxna rabnaa laakiin se lafaha inaan taabano ma rabno sababta waxay rabaan lafaha inay faa'iido ku sii helaan dividends kay rabaan boqolkiiba 6 boqolkiiba 7 boqolkiiba 10 bay rabaan qofkan wuxuu rabaa inuu helo faa'iido joogto ah bil kasto oo u dhaxayso 4,000 ilaa 5,000 buu rabaa waa qof ritaayiriya ilmo ma haysto waa asaga iyo xaaskiisa nolol yar degan oo isaga jira soma buu rabaa wuxuu kaloo rabaa lacalla hadduu dhinto berito in lafahaas ama principalka u noqdaan dhaxal ilmihiisa iyo wixii ayaga u gartaan bay rabaan so in aan sawirkan intuu saar rabi maanta aad ku fakartaan haddaad tagto maanta ka tagto sawirkan runtii hagalo maskaxdaada oo ah sideen ku gaari karaa sideen ku heli karaa 100,000 200,000 300,000 aan u dhigan karaa meel maanta ilaa waqtiga laga gaarayo 62 sano hadduu ilaahay gaarsiiyo dhibaatooyinka aan kala kulmo dadka aan ka dhashay wuxuu leeyahay yaa gaarsiinayo kulay Allah og waa run laakiin se ilaahay wuxuu ku yiraahdaa qorshe la imo soma mid kale ogow haddii maanta aad waxaan tabciisi oo maanta aad dhimato alxamdulillah ilmahaada dhaxal sugayaashada waxaan helayo awalba waxa u shaqeynaysa soma in lagu dhaxlo soma in ilmahaada ama xaaskaada dhibkii aad soo martay ee ayaga soo marin
soo hadhiin yaa igaarsiinayo ku fakar inuu ilaahay gaarsiina ku duceyso ilaahay weysii cimri dheer iyo caafimaad soo ma ka socoyna halkan waxaan rabaa inaad fahanto faa'iidooyinka caymiska bulshada ereyga social security Soomaaliya kama jiro haddaad fiiriso waa wax ka jira weeye wadamada reer galbeedka soo markii aan fasirayay waxa kaliya aan u soo dhaweyn karo waxaan u bixiyay caymiska waxaan u bixiyay bulshada u bixiyay caymiska bulshada waa insurance weeye laakiin waa insurance oo social ah waa bulsho Soomaa marka la fiiriyo waa dhaqli nooleed joogto ah markaad howlgab noqoto adigu ay helayso waa waajib weeyaan waa helaysaa haddaad shaqaysay adiga oo shaqo caadi ku jirtay laakiin pensionka waad heli ama ma helaysid waxay ku xiran tahay dadka oo shaqeynaysa ku xiran tahay haddii bixinayeen investmentiga adeeg kugu xiran tahay iyo kaydka laakiin ma adiga helayso waay su'aal isweydii maanta adiga Minneapolis Minnesota waa magaalooyinka xoogu jirta hadda nolosheeda ay u tahay aad qaali ku jirta aniga magaalada Seattle ka magaalo qaali ah weeyaan San Francisco New York su'aasha isweydii maanta qof 62 sano jiro maanta Mareykan joogo oo nolol fiican u bartay ma ku noolaan karaa $200 kuma noolaan karo waa sababta la rabo inaad u subsato maalgashi iyo pension kale adiga aad rabto waxyaalaha runtii aniga aan aad ula yaabo waxa waaye da'daaneeto 62 63 64 atan waxa ku jiro qiyaana ku jirto qiyaano dawladda waxay rabtaa aad si shaqeysay rabtaa adiga si dhiigaada loo miirto Soma wada rabaa laakiin se adiga waxa la rabaa inaad la imaado qorshe fiican oo sax ah oo aad wax isku aadisaa rabaa isku aadisato saving kaadi kayd kaadi investment kaadi pension kaadi muxuu ahaa guriyo kale ka soo galaayo adiga wax isku aadisataa si tan lacagtan $200 aad ku fakirinba iska noqoto lacag dheeri oo soo galayso baa rabaa ma garatay laakiin haddii ilaahay awood fiican ku siiyay aad dhigi karto waa si shaqeyn karaa dib kuma jiro inaad sugto 63 64 65 dib kuma jiro midda kale qofka markuu shaqeeyo 4 buunduu helaa sanadkii buu helaya waa dhibco lagu helo koordi moogta waana shaqeysataa weeyaan hal buundo waxay u dhigmataa adoo shaqeeyay lacag gaarayso $200 dadka waxaan ku dhahaa ha ku mashquulin buundada waxaad ku mashquushaa intee mushaar baan heli karaa sanad kasto mushaarka hadduu badan yahay buundada waa badan tahay dakhligana waa badnaanaya laakiin hadduu mushaarkaada yar yahay buundadana way yaraanaysaa waxa helaysana way yaraanaysaa ogow ninka lacagtan helayo waa nin professional ah ninka ka shaqeeyay waiter ama warehouse halahan ma helayo 500 600 oo hela because lacagtu ku shaqeynayo ama ku shaqeynaysa gabadha ayaa yar soo haddii qof kasta tan ma helayo waana waxaan waa estimate waay waxa kale oo rabaa inaan runtii ka hadlo waxyaalo badan dadka Soomaalida aysan ogeyn caymiska bulshada retirement kaliya ma ahan haddaad curyaanto oo disability ay ku soo gaarto adiga oo aan waqtigan gaarin xaq baa u lahaan kartaa inaad disability qaadato disability waa kala labo midna waa SSI oo dadka waxa la siiyaa hadduu qofka ama disable yahay haddii qofka uu sawirkiisa shaqaysan dadka badankood waxay u yaqaanaan markii ayooyinkanagi awooganagi ay wadanka imaadaan ay shaqeyn karin kanoo kale la siiyaa SSI baa la siiyaa qofkaas social security ma helo saas oo tahay haddii tii alla ay ku timaado maanta xaaskaada iyo ilmahaada ilaa gaarayaan age 18 xaq bay helayaan hadda amad salahan aniga ilaahay hadduu tii maanta ay timaado maanta ilmahayga 18 ma gaarin ilaa ay gaarayaan 18 5,600 helayaan waa shaqaystay Soomaa anaa waxaan shaqaystay soo taana waa waxa caymiska bulshada uu leeyahay taa waxa haddii maanta reerkeyga ay guriga ayaga leeyihiin oo gurigooda uu pay off yahay
iska waleynin lacagtan ku filan kana badan haddii xaaskayga kulli qof caqli la waay waxay dhihi kartaa ilmahayga waa yar yihiin waan baxayaa waxaan u guurayaa waddan kale oo noloshiisa ay jaban tahay waa ku soo noolaanaya markii ilmahayga ay noqdaan teenager aan soo laabanaya tanna waa qaadanaya gurigiina kanaan ka qaadanaya wixii waa inaad isku ajistaa so waa sababta aan leeyahay waa inaad qorshe la timaadaa haddaad qorshe wadin meel ma gaaraysid adiga waa ka soconaynaa noocyada qorshayaasha howlgabka halkan waxaan rabaa in aan kula hadlo dadka iskoo u shaqaysto marana kula hadlo qofka oo aan shaqo caadi ka shaqaynin asaga iskii u shaqaysto wuu furan karaa retirement account wuxuu furan karaa mid loo yaqaano traditional IRA ama Roth IRA ama 401k ama waxa loo yaqaano SEP IRA ama solo 401k loogu talagalay dadka ganacsiga yar leh qofka ku shaqeynaya 1099 qof clientigayga ah ama macmiilkayga ah baan waxaan soo qaatay xisaabta soo qaatay simple aan idin tuso qofkan waa qof suubiye waaye consulting suubiye waaye iskuullada ku yaala Washington bay u tahay consulting gabar fiican waaye lacag fiican soo gasho ta fiiriso waa 1099 gabadhan lacagta soo gasho grosska waa lacag gaarayso 260 kun soo gasho waa grosskeeda expense-keeda aad u yar yahay the consulting waaye waxa ma soo bisoo no overhead gurigeeda xafiiska ah ma garatay maxaa laga yaabaa in gaariga ay qaato mileage so ma badna overheadkeeda saasoo tahayna dee qarashka personalka shaqana claimit so faa'iidada gabadhan u soo laabatay 242 kun waay maga fiiriso halka waxa ku qoran before SEP halka waxa ku qoran after EAP ku qoran waxaan rabaa qof ma sha Allah oo horeysa waay ayada kama washo inta aan bixinayo waxay ka washaa lacagta ugu badan oo aan gelin karo SEP account-kayga maxaa waay Cabduuli bay tiraahdaa IRS waxay ogashahay qofka saan oo kala in 25 uu qofka gelin karo retirement-kiisa ogashahay because waxa la diidayaa qofka inuu faa'iido dhamaha ku qoryaa la diidayaa dawladda cashuur ay ka rabtaa moogta halkan hadaa fiiriso gabadha markaan taxiga u buuxiyay waxaan ku yiri heblaayo waxaad bixinaysaa lacag gaarayso 77480 ay bixinaysaa before 401k-geeda waxaad tiri okay Cabdiwali haddaan 401k-geyga aan lacag geliyo meeqaan bixinaya saar meeqaad tirada inta lii ogol yahay maximum-ka lii ogol yahay halkan gabadha waxaa loo ogol yahay lacag gaarayso 60,000 iyo 600 loo ogol yahay kuma jeedid bal fiiri markii ay taagelisay deduction baa u soo baxay soo ma gabadhan meesha ka bixin lahayd 77000 kun ay bixinaysaa halkaas maxay faa'iiday lacag gaarayso 27 hasba u baaqatay 60,000 ay ku riday account-keeda retirement hada iska leh 60,000 hadhow insha Allah basa gabadhan 60,000 runtii maysan gelin account-keeda waxay gelisay kaliya only muxuu ahaa tirtiglisi sababtoo ah de 26 waxay uga soo laabatay cashuurtii soo ma lixdeedii maysan gelin because xaggay uga soo laabatay saving uga soo laabatay haddaysan gelin lahayn 401k-na ma heli lahayn 77 bixin lahayd way khasaar lahayd soo ma tan dadka waxay u maleeyaan inay tahay canshuur buuxin halka canshuur buuxin maaha waa tax planning waa tax strategy waa funding your 401k waa funding your SEP waa funding your investment-gaada waa waxyaalo badan numberkaas kaliya waxaa ku qarsoon intaasoo tiira ku qarsoon soo qofka hadduusan ogeyn waxa uu suubinayo dee wuu khasaaraya waa sabab dadka aan ku dhaho dambaa adig kuugu jirto in aad la shirkowdo qof xirfadla ah ama ha ahaado CPA
ama ha ahaado CFA waxaa laga yaabaa meesha adiga aad $26,000 ka save garaysay qof aniga oo kala ah haddaan kuu buuxinayo canshuurta in aad $1,000 oo aan kaa qaaday aad ka cararayso adiga kunkayga u jeedaa laakiin si adiga uma jeedid 27ka aad save garaynayso waa dhibaatada dadka Soomaalida haysta waay run baa fiican daash moogtahay ya waxaad fiirisaa Abdul $1,000 aan siiyay muxuu Abdul ii soo celiyay what the value buu Abdul ii siiyay wal Abdul value aniga check kuma qorin laakiin surun ahaantii waxaan ku save gareeyay lacag gaarayso $27,000 sidee baan kugu save gareeyay waa isla shaqeynay qorshaad ii soo bandhigtay waxba ila wadaagtay waa sheekaysanay waan ku bartay waxaan ogahay meesha u socoto waan kula soconayaa laakiin haddii adiga aad tahay qof wareersan dan waxba kulama wadaagi kari waayo meel aan kaaga bilaabo ma hayi sababtoo ah mar rabo inaan kugu subiyo overwhelming hadda wax kasta kula gabadhan sanad kasto 55,000 60,000 77 ee ku riita akaunkeeda soo qoftaan waxay noqonaysaa dadkaan oo kale hadhowdii soo ma way noqonaysaa waayo over 20 years qof ku ridaay akaunkiisa 60,000 intuu imaana hadhowdii beema soo run waay tartiib loo gaaraa qorsheynta dhismaha guriga howlgabka waxyaalaha halka aniga runtii ma ogeyn waxaan ka bartay marka u shaqeyn jiray company-ga aan u shaqeyn jiray baan u shaqeyn jiray sanad kasto qof cadaana baa retirement qaadanayo qofkaas wuxuu ku leeyahay oo Abdul guriyaan dhistay okay hal guri kala sotay oo Colombia Peru Thailand Vietnam Philippines why so ku leeyahay oo nolosha raqiisa labor is cheap cuntada raqiisa dadku waa fiican yihiin wuxuu ku leeyahay halkan waa nolosha waa qaali laakiin qofkaas dhisanayo guriga muusan bilaabin markuu jiray 62 sano wuxuu bilaabay markuu jiray 45 markuu jiray 50 oo bilaabay dhulku iyo gatay kow ka bacdi dhismo bilaabay tartiib bilaabay macnaheedu waxaan ula jeedaa halkan ula jeedaa adiga ama awow ama ayeeyo aniga mar rabo in aad dulsaar ku noqoto guriga wiilkaada ama guriga gabadhaada macnaheedu ma u noqon marti laakiinse mar rabno waxaan rabnaa in aad tahay xor oo adiga guri aad leedahay oo adiga markaa rabto aad soo booqan karto wiilkaada iyo gabadhaada iyo ilmaha u tahay ayeeyda adiga qaar waxay dhahaan Abdul noloshii lagu yaqaanay waa gaalada ma ahan runtii waa nolol xishooda weey waana ka xishootaa wiilkaada waana ka xishootaa gabadhaada way ayaga gurigaas dhistay ma fahmino inaad saarto ma ahan culays dadkaaseeto haddii ayaga ku yareen gooni waay ay ku dhaheen aabe hooyo aniga la soo deg guriga howlgabka wuxuu keenay xasilooni sharaf iyo farxad waayo waa guriga awoowe waa gurigii ayeeyo soma waa guriga awoowe guriga ayeeyo ya wayane iibso dhul adigoo wali shaqeynayo dhiso si tartiiba 5 sano ilaa 10 sano ku qaato dooro meel kugu haboon qofka xeebaha Soomaaliya ilaahay wadankan nabad ha nooga dhigo goobweyn marka baraawe warsheeq murcaayo iyo tuuleeda may ka reebay ama Kenya sida Fabingo Mombasa hadhow insha Allah Fabingo insha Allah in kaga sheegi doonaa annaga haddaan qeyranahay waxaan ka caawin karnaa sida aad u dhisan karto guri ama xataa aad u maaqsan karto retirement kaliya anaga maniin waxaan nahay real estate waxaan nahay wealth baan nahay management adaa laga rabaa inaad qorshaha la timaado faa'iidooyinka ay leedahay in aad ku qaadato hawlgabnimada Mareykanka gadaashiisa Mareykanka dibadiisa ku qaadato hadaba waxaan ka hadlaynay lacagtan baan ka hadlaynay qof maanta aadayo Caribou Cafe aadayo IHOP aadayo meel kasta aadayo oo $100 ku soo cunteenayo marka 60 gaarto halahan mis gaarayso waa sababta dadkan reer galbeedka ah ay Mareykan badankood uga guuraan oo halkaas ay muxuu ahaa ay degaan
halkan ay u yimaadaan inay booqdaan ilmahooda dalxiis iyo xataa caafimaad hadda ayaan hore anoo TikTok isaga jiro baan waxaan arkay isbitaal ku yaala Nairobi oo aqbalayo VA insurance VA taqaanaan waa veterans insurance ka VA waa dadka militariga Mareykan insurance gooniga leeyihiin bal ka waran isbitaal ku yaala Nairobi oo VA insurance ka qaaday hadii maanta adiga askari Mareykan tahay oo artaar garowday waxa xaq leh inta aad Nairobi inta Mareykan maanis xaqas lagu daaweynaa oo VA ku daaweynayso ma fahanteen hooyga waa raqiis cuntada waa raqiis daryeelka waa raqiis waxa la jaanqa ma garatay iyo markii la hadda fiiri maanta waa 33 degrees waa Minneapolis bal ka waran hadii aad iska joogto meel maalin kasto cimilada tahay 77 degrees hadda aniga magaalada Seattle waxaan la degan oday baan la degan Soomaaliya 6 bil uu nala jooga 6 bil malini buu jooga guri buu leeyahay he owns a house guri buu ku leeyahay oo noo yimaada uu nala jooga March April amal October November ay naga tagaa malini buu iska aadaa apartment buu leeyahay asi xaaskiisa hagaas degan yihiin markii meel la gaaro wuu yimaada gurigiisa ilmuhu la jooga oo iska laabta you can have the same life but adba yeelan kartaa talaabooyinka hore ee laga bilaabayo horta marka koowaad waa in adiga aad qiimeysaa xaalada dhaqaale horta adiga isqiimee maxaad awoodaa maxaa iska jari kartaa maxaa meel dhigan kartaa waayo de qof hooyadii iyo aabihii iyo ehelkiisii ay ka soo wacayaan Soomaaliya runtii maanta kuma fakari karo retirement laakiin saasoo ay tahay adiga ayaa iska masuula kowdi you are number 1 that's your priority qisa yar waa qisa badan baa jirta qisa idin sheegaya ayaan baan nin quraac isla aadnay Soomaaliya marka isla aadnay quraacda iska sheekaysanayni soo wuxuu yiri Cabdiwaliyo waxaan ka taybuu yiri waxa loo yaqaano lifetime care plan bankati waa qaan lifetime care plan dadka hadda waxa laga yaabaa home care jiro home care ka de waa home care dawlad waay dadka haduu qofka haduu hanti leeyahay uma qalmaayo kaas waxa la leeyahay koodi isticmaal lagu leeyahay hantidaada maxaa dhacay soo wuxuu yiraahday yar walaalkiisa sagdaada ka weyn baa jiraday markuu jiraday alxamdulillah ilmihiisi intii awoodaan way caawiyeen laakiin soo ogow waa ilmo inta ku dhashay ku koray uga baxay jaamacad cunugii iyo gabadhii house loan buu leeyahay car payment buu leeyahay ilmahoodii jaamacadda ka bixinayaan bal pressure-ka qofka saaran fiiri aabihiisna waa wuu sugayaa inuu daryeelo so ninkan kan ka yar tiibu ku waana qaatay wuxuu yiri Cabdiwali dadka aan la shaqeeyo yiri lifetime care plan bay ku wada jiraan gaalada su'aalan si wadiye wuxuu yiri Cabdiwaliyow waxaan go'aansaday buu yiri lacalla hadii tii walaakay buu yiraahday ee ku dhacdo waxaan raawi yiri ilmahayga in aan saarin culays oo ayaga aan la dugo laakiin sariirtaas ee igu timaado private nurse oo aniga aan la baxayo oo kaayada iga bedelayso oo dharka iga bedelayso oo ii qubeynayso anoo ku nool buu yiri guriga gabadhayda iyo guriga ama wiilkaygaba laakiin marra buu yiraahday in aan maanta waxba dhigan meel taana ii timaado qofku ku waana qaatay dadka qaar waxay dhigiraan oo yaa gaarsiinayo ilaah baa og hadii gaarsiinayo hadda aniga gobolka Minnesota ma aqaan haddana gobolkanaga Washington State sharciga la soo rogayba oo in aan bixino caymiska payroll ka mid yahay in aan bixino lifetime care plan oo canshuur aan bixinaa sababtoo ah dadkii way sii noolaanayaan waqtiga dheeraanayo dadku jirinayaan qofka markuu jirinada wuxuu dhibaato saaraya culayska dawladda ama Medicare-ki ama Medicare saaraya soo dawladdu maxay rabtaa inay lacag sii aruursay rabtaa inay sii qaado canshuur si kaydka loogu talagalay dadkaasayto uu ugu sii jiro lacag fiican
la tasho qof xirfad la ah ama anoo kale ama CFA waxa loo yaqaano ku biir qorshe howlgab ah hadda tusaale ahaan gabar oo daycare u furan yahay gobolka lagu furan yahay waa la yaabay ayaa hore $150 bay ADB-gada jartaa every paycheck waa retirement ayas furatay waa weydiiyey maxaa heblay tirada kuma lahano qofkii ADB-ga ii furaayay ii sheegay waxay tiraa $300 tiraa bishii waxay tiraa waa awoodaa dhammaan waa awoodnaa $700 bishii awoodnaa ruma fiicane ka fakar dhaxalka iyo mustaqbalka qoyskaaga lama rabo inaad qof saarto culays adiga aad hadda aad muxuu ka qaadi karto gunaanad howlgabku maaha dhammaad waa bilow nolol leh waa xurriyad waa ujeedo waa xasilooni waa bilow qorshahaaga maanta naftaada mustaqbalka iyo maxay doontaa hadda anagu nahay qire waan ku fuudeyn karnaa wax kasta oo aad ku jirto retirement-gaada waxaan ku soo koobayaa sheeko yar gabar aniga markii aan shaqaalaha ahaa oo aan u shaqaynayay dowladda hoose ee Seattle gabar kamid ah dadka aan maamulo aniga oo da'ahaan iga weyn baa waxay gaartay da'da 55 bay gaartay umaleynaya soo marka qaarkood waxay ku xiran tahay dadka oo shaqaynayso waxba soo hormaro waxa soo hormari kuna waxa loo yaqaan service period ama waxa loo yaqaan retirement period soo gabadhan waxa u soo hormaray service-ka u soo hormaray period u soo hormaray gabadhan wadanka waxay u nooltay Philippines u nooltay ilaa gabadhan Philippines ka dhisanaysa guri for a while waqti badan markii City of Seattle uu isugu aaday City of Seattle bay ka qaadatay retirement maysan gaarin social security markii retirement-gii qaadatay bay baxday county-gii oo darisna ah bay shaqo ka bilowday malfiria county-gii bay shaqo ka bilowday pension-kii ka qaadanaysaa City of Seattle mushaarixii ka qaadanaysaa county-gii waa weydiiyey maxaa dhacay sababta tirada Abduuli waxaan rabaa in social security-kayga oo sii bataan rabaa waxay tiraahday I have 7 more years 55 jira I cannot retire social security pension waa heli karaa but I can't get social security waxay tiraahday wiil waxa tir wax oganaa so inaan kan badiyaa rabaa dadkaas baa saa u fakarayo adna waxaa rabaa inaad saa u fakarto waxaa la dhihi jiray ma if you can't beat them join them meno baa la rabaa Maraykan baan ku noolnahay lama rabo inaad u fakarto sidii aabaheen hooyadeen ayeydeen awoogan u fakaraay that's 1960 1970 1940 that's lama rabo aniga Abduuli ahaan waxaan ahay mulkiile ama investor baan ahay dadkiina la socdo igala socdo baraha bulshada hal bil iyo bar baa waxaan ku wareegayay Soomaaliya ku wareegayay July ilaa August inta magaalo aan tagay 5 waa dhaafaysa runtiina waxaan u tagay waxaan aaminsanahay inaan nin wadani ah baan aaminsanahay hooyada Allah u naxariisto iyo aabahay waxay kamid ahaayeen ciidanka Soomaaliya kamid ahaayeen soo cunug lagu soo koriyay askarnimo iyo difaac wadankaada u ahaa magaalooyinka aan tagay Soomaaliya dhammaantood waxaan dhihi karaa waa ku habboon yihiin kumana habboono in lagu qaato howlgabnimo waxaan ku hormarayaa maxay ugu habboon yihiin waxay ugu habboon yihiin waa dhulkayga aan jeclaa intaan macawiis qaato go'shaal qaato bakoorad qaato baan wajada mari karaa waxa leey waa ninkii Abduuli ahaa reer hebel ahaa waa la yaqaanaa luqadda lagu hadlayaa saasoo ay tahay Abduuli Soomaaliya wuxuu ka soo tagay asagoo jiro 11 sano wax connection oo aan ku leeyahay waa ehelkaygu baa degan I have no connection baan ka wadaa close to 33 years baan qurbo ku noolaa laakiin salkas waa tagaa because connection kaasa igeenay 20 sano baan waxaan ag fadhiyay Jeff iyo Tiffany iyo Catherine oo 401k diyaarsanay oo iga sheekeynayay xeeb cad
iga sheekeynayay doon iga sheekeynayay iga sheekeynayay golf ma yaalo Soomaaliya doon ma taalo Soomaaliya meel oo retirement community ma yaalo Soomaaliya markaan siyaaro joogay oo saan u bandhigay oday kamida meesha wuxuu yiraahday oday reer siyaar la intuu baxay buu ku ritaar garoobay degmo kamida degmooyinka Soomaaliya hadaan dhaho xagga waaye reeba laga yaabaa inay qabsadaan soo degmaan leey odaygaas xamiitadii buu ka jiraday waqti xamiitadii hadii dilacdo waa very dangerous way waa la soo cararay magaalo la keenay waa magaalo weyn ee Soomaaliya waxa ka qaban waayeen magaalo kale la geeyay waxa ka qaban waayeen siyaar la soo cararay odaygaas qofkaas waxa laga yaabaa inay ku baxday ogeeraan $10,000 laga yaabaa si loo keeno loo badbaadiyo baa laga yaabaa markii aniga aan ku wareegay waxa ii soo baxday haddaan 62 sano jiro maanta Soomaaliya kuma qaadan karo howlgabnimo aniga oo forjeenay cid aan ka dhashay magaalada aniga reer Balxawaan ah saala ahaan Balxaw dhul baan ku leeyahay weyn oo aan qas ka dhisan karo Balxaw anoo jooga daaq dhacay waa la isdagaalay waxa isdagaalay cid aan ka dhashay dhexda isdagaaleen cid iska daayay waayahay anoo 62 sano jiro oo guriga iska degan haduu baasugad u maraayay maalin kasta maxaa waay marrabo waxaan rabaa inaan dego meel jawi degan baan rabaa hadduu wadankayga degana waa u guura soo anoo iska socdo baan runtii tuulo yar oo Kenya banaankeeda ah baa Ilaahay i keenay tuuladaasaan runtii aad u dhacay markaas waxaan go'aansaday in aan tuuladaas aan ku qaato howlgabnadeeda soo liiban tuulada dar kabacdi waan ka jawaab su'aasha marka aan sii gabowno waxaan isweydiinaa xagee ayaan rabnaa inaan ku qaadano sanadaha iyaga dahabiga ah ee howlgabnimo meel nabada degan oo ammaan ah waana taa sababta aan raba inaan idin tilmaamo ama idin sheego dahabiga qarsoon magaalada Fibingo ee dalka Kenya Fibingo waa magaalo xeebeed qurux badan oo ku taala 21 meel amaba 33 kiiloomitir waqooyiga magaalada Mombasa magaaladan quruxda badan waxay u dhaxaysaa magaalooyinka xeebaha ah ee Mombasa iyo Malindi waxayna dhowr daqiiqo u jirtaa xeebo qurux badan oo loo soo tamashala iyo dalxiis tago garoon caalami ah oo lagu ciyaaro golfka heerka caalami waxa ayna leedahay garoon diyaaradeed oo ayada u gaar ah bal qiyaas in aad ku soo toosto udgoonka badweynta Hindiya geedaha qumbaha ah oo ay neecawdu luulaysa iyo dhawaaqa mawjadaha hirarka badda nolosha halkan waxay ku socotaa sida adigu aad rabto deganaansho raaxo iyo bulsho wadaag ah shirkadda Qira Investment and Real Estate waxa ay dhisaysaa guryo retirement ama dadka howlgabka loogu talagalay iyo kuwa fasaxa iyo dalxiiskaba ah si gaarana loogu talagalay qurba joogta Soomaaliyeed halkan waxaad ku yeelan kartaa guri villa ah ama dhul ku gaar ah adiga oo ku nasanayo sharaf iyo raaxo qiimo leh guryahan sida quruxda badan loo qaabeeyay waxa ay bulshadeenu ay ka helaan adeegyo casri ah sida warshada biyaha cusbada aan nadiifiso koronto 24 saac habeen iyo maalinba 7 cisho joogta nidaamka bulaacadaha amni buuxa oo 24 saacba habeen iyo maalinba 7 cisho la helayo iyo goobaha bulshada intaasi waxaa dheer magaalada Fibingo oo ah magaalo aad ka helaysid noloshii qurbaha aad uga baratay ka waran inaad ku raaxaysato maqaayadaha fiican oo ay ka mid yihiin kuwa lagu iibiyo hilibka isteega biisooyinka cuntooyinka kala duwan ee fudud cabitaanada kofeega iyo sidoo kale taba goobaha jalaatooyinka intaasi waxaa dheer cunto caafimaad leh oo aad si toosa uga iibsanayso beeraleydii soo abuuratay farmashiye iyo suuq weyn iyo wax kastood u baahato oo ilinkaaga hortiisa ah adigoo aanan ka fogaanin yaa salaam qaar badan oo naga mid ah oo ku nool qurbaha howlgabku wuxuu u muuqdaa mid aanan la hubin laakiinse maalgelinta guri howlgab waxay abuuraysaa dhaxal waara carruurtaada iyo jiilalka soo socdana aad uga tegaysid tani waa wax ka badan hanti guri
waa xasilooni maskaxeed iyo sidoo kaleeto maalgashi waara Fibingo waa magaalo laga ixtiraamayo oo aad ku qaadanayso sannadahaaga ugu wanaagsan ee nolol raaxa leh haddaad gaartay 45 sano oo aad qorsheynayso mustaqbalka ama aad ku dhowdahayba inaad shaqada ka fariisato oo aad ka nasato hadda waa waqtigii aad dhaqaaqi lahayd aan wada dhisanno si aan ugu wada ritaar garowno hab maamuuseedka raaxada leh ee aan ku qaadanayno meel runtii ah hooy dhab ah Fibingo way ku sugaysaa waana ayna wada sugaysaa waxaan dhan dhulka laga heli karaa hal cilada ama laba cilada amni buuxo oo la isku halayn karo haddaan Soomaaliyeednahay runtii xaqiiqatan laga hadla fiican moogta amni buuxo oo la isku halayn karo iyo infrastructure isbitaal wadooyin baa loo baahan yahay ayaa hore anigu wuxuu igu yiri Cabduwaliyo ka daa'ib baa tahay buu yiri wadani ma tiid wallahi soo igu yiraahdo samaxaan iraaday niyahow laba wax kala saar baa yiri ganacsi iyo dawlad ganacsi kasta waxaan iri waa sabab baa iri Mareykan uu u haysto dhaqaalaha adduunka laba wax waxaan iraaday kalsooni iyo kala dambeyn sharci dadka qabanayo kala hagayo iyo kalsooni la isku leeyahay Soomaaliya waa wadan hadda soo kabanaya waay wuu gaaraa meesha ay wadamada kala gaaraan laakiin se qofka maanta 62 sano jiro ama jiro 55 jiro lagama yaabo in uu golf course ka heli karo Soomaaliya soo hadii annaga aan qiranahay waxaan dadka diyaar u nahay rabo inay qorshaystaan retirementiga oo aan ka xishooneyn inay dhistaan wadankooda meel aan ahayn waxaan diyaar u nahay in aan ku maalgelino raaliho dhul waxaan gadanay 5 acre gaarayo 5 acre waa xaafad baa noo xiran waxaan u bixinay Qira village wana u bixinay xaafadaas 32 boos ka kooban tahay 40 boos la rabay laakiin 8 annaga ayaa beerdaraynay waxaan u beerdaraynay wadooyinkii club house-ki iyo meelaha mujida cagaarka waa meel waxa lagu lugayo way waa enclave weeyaan oo gudaha naga ah halkaas laga soo gali inta la wada degan yahay waxyaalaha sababna waxa kamid ah masaajid meeshan kuma yaalo dugsina kuma yaalo sababtoo ah ugumaana talagelin meel ilmo quraan loogu dhigo waa retirement village weeyaan qofkii dugsi rabo ilmihiis banaanku geysanaya masaajidkana waa nugu dhagan yahayba waa de coastiga Mombasa waa meel iska muslina ma garateen qofka rabo inuu nagu soo biiro hal shuruud bas ayuu u baahan yahay waa guriga inuu ku dhisan karo 5 sano gudaheeda oo ku dhisan karo guriga wuxuuna dooran karaa kaliya 4 nooc mid kamid ah adiga banaanka ma kala iman kartid only kan iyo kan bas ayaa dooran kartaa waxa gudaha galaya iska leh ama waqooyi u jeedi qolkaada ama u jeedi koonfur aday ku taala laakiin sisaan ma dhaafi kartid waxaad ku xaq u leedahay in adiga aad keensato kamari ku dhisay adaa xora hadaa inta ka tagayso aad tagayso Mombasa oo aad la shirkoobayso kamari uu ku dhisay diyaar annaga halahan hadaafin ama annaga ma dooran kartaa oo ku dhisi karno 5 years 7 years wuxuu ku xiran yahay jeebkaada annaga lacag ma hayno lacagta iska leh annaga boos kale ka iibinayna adiga hebel ama heblaaya baa laga rabaa saa ku dhisan lahayd ama sanad soo dir 20,000 sanad 50,000 adeeg ku taala ayuutadii agalaysay xaq wareejiya ayaan dhihi lahaa kan brochure kan naga waay basically oo ku siinaayo annaga dhulkanaga ma ka xishoono intuu yahay ma qarino halahaas weeyaane Soomaalida kale waxaan uga duwanahay oo dhulka iibiyo dhulkanaga waa fully serviced macnaheedu waxa waaye koronto leeyahay markaan leeyahay koronto leeyahay meeshay martaa korontada bullacadu leeyahay siwarkii buu leeyahay biyihii buu leeyahay oo lagu xiraaya sababtoo ah barita mar rabo intaan ka qaato 2,000
markaad tirada waa dhisaya aan ku dhaw 10 kun oo kala keen biyan ku xiraaya waa isdagaalayna waxaad ku jumleeyay hal mar adiga iskaan qofkii raba inuu hal mar dhulka gato discount baan siinaa $2,000 qofka aan awoodin tan dib malahan deposit uu bixiyaa u dhig mahalahan and he has to pay afar jeer oo installment ya maasanid company-gana waa company ka diiwaan garaysan Kenya waa company lawyer leh xataa qofka naga gadanayo agreement-iga aan siino waxaan ku baraarujinaa inuu qaato oo wala tago lawyer Kenyana oo asaga soo baaro sharciyeysto oo dhaho aniga hay aaminin round-regana wuxuu dhihi jiraa trust but verify qaado waxaad tidhaahdaa lawyerow qir investments dhulkaa ma leeyahay haa buu ku leeyahay kabacdi markaad soo ogaato soo laabo boloodka aad rabto halkaan ka dooro kaasaan rabaa baa leeda laakiin anaga waxaan kaa rabnaa saan u ogaan inaad tahay serious deposit lee kaa rabnaa show us you're serious sama laakiin no deposit no agreement adiga banaanka isaga wareeg hadda gabadha ka farsamada ma sheegaayo qof aa TikTok iga helay wallahi TikTok wuxuu jiray Abdiwali isir bura GPS ka bingo wanda ka bacda akhri qofku isagu intuu baxay uu drive gareey buu meelay soo maray wuxuu igu soo celiyay Abdiwali ma sha Allah it's a beautiful area because qofkaas waa qof goal leh rabo inuu retire garoobo ani ma dirin bara bulshadu igu arkay because qof ku fakaraay way waxaan ku soo koobayaa wiil iga soo wacay Denmark Copenhagen oo pharmacist ah waraysiga ma qaan aragtay wuxuu yiri Abdiwali buu yiraahday interview Soomaaliyeed uu yiraahday oo aan u fariisto hal mar aan daawado yiraahday kuwada ku dhow sayri way siri raaliha way israfaynaya siri directly buu ana ilaahda shay buu yiri directly because saa u fakarayo yiraahday dhibaatada waxa waaye qof kasto wuxuu u fakarayaa individually baa loo fakarayaa where do I retire laakiin qof ku fakaray wali ma jiro Soomaali ma retire garooba soo aniga markii xagga aan tagay bay igu dhacday aan dhaho haddaan degaayo meel almiino dadkayga Soomaalida ah oo aan la deegi karo hebel aan soo kaxaysto golf hay la ciyaaro basketball hay la ciyaaro ninka xagga fadhiyo hadduu rabo hay la soo ordo wuu ordaa aan la ordo because I want the activities aan rabaa dad waxaan rabaa aan isku fikradna aan rabaa qof oo pharmacist ah dhakhtar ah nurse anesthesiologist ah qofkaas aan rabaa macnaheedu ma ahan dadka oo macnaheedu ma ahan waxaan rabnaa qofka xirfad leh pension buu leeyahay moogta ku furaya qofka traaga wado ama qofka Uber ka wado pension ma yaqaano foorumkii ma yaqaanaba qofkaas wuxuu mashquul ku yahay sabab bixiyaa kireeda maanta awdra bill laakiin qofka pharmacist ah dhakhtarka ah manager ka foorumkii bixinaya every 2 weeks qofkaas jaa oo ku furantaa maskaxdiisa so dhamaantiin waad mahadsantihiin